nin ku noolaa airportka muddo 15 sano ah si uu reerkiisa uga fogaado nolosha mararka qaar way adag tahay waajibaadka qoysnimana waxa dhacda inuu noqdo mid culays ah dareenka inay jiraan waxyaabo ku xanibayay ciriiri iyo cadaadis joogto ah ayuu ka xumaaday way ugu dambeyntiina ku khasbay inuu qaato go'aan khatar ah kaasoo ahaa inuu airportka ka dhigto hooygiisa kana tago gurigiisa iyo reerkiisa waxa ka soo wareegtay 15 sano markii uu qaaday talaabadan la yaab kale safarkeena way hooygan la yaab kale ayaa ka soo bilaamay markii uu waayay shaqadiisa ee da'da 40meeyada da'da iyo xaaladahan ku hareeraysan oo iska xumaa ayaa ku noqday caqabada inuu helo shaqo kale wuxuuna bilaabay inuu ku noolaado gunno yar oo ay dawladdu siin jirtay oo ahayd $1,000 una dhiganta $150 qiyaastii familiga way oo ku daalay caadooyinkiisa xunxun ayaa maqashiyay go'aankoodii ugu dambeeyay kaasoo ahaa inuu iska daayo sigaar cabista iyo khamriga hadduu rabo inuu la sii degnaado ama la sii noolaado haddii uusan iska dayn karinna dhaqamadaas inuu uga tanaasulo dhammaan lacagta gunnada ee ay dawladdu siiso tan ayaa ku noqotay laba daran mid dooro xaggiisa haddii uu ka tanaasulo gunnadiisa ma helayo kharash uu ku iibsado sigaarka iyo khamriga way wuxuu go'aansaday inuu isaga tago gurigiisa kadib markay doodba aanay dhex martay isaga iyo xaaskiisa nasiib wanaag waxa hooy u noqday airportka caalamiga ee Beijing China Mr. Wei wuxuu ku diyaarsaday airportka alaabihiisa cuntadiisa iyo jiifkiisa geeska qaybta sugidda ee airportka ama waiting area airportka marka la eego maalinkiisa caadiga way wuxuu booqdaa suuqa subaxdii halkaas uu ka soo iibsado quraacdiisa sidoo kale wuxuu baxaa xilliga qadada waqtiga ayaana wax macna u sameeyeen way sida uu sheegay wuxuu la qabatimay kicitaanka subaxii isagoo ay ku hareeraysan yihiin musaafiriin kala duwan oo isaga gudbaya airportka qaybihiisa kala duwan 2017 ayaa mar maamulka airportku ka dalbadeen inuu ka tago airportka iyagoo xataa u yeeray booliiska si ay u sii kaxeeyaan laakiin maalmo kadib ayuu ku soo laabtay qisada way ayaa soo jiidatay warbaahinta iyo baraha bulshada halka dadka qaar ay ku cambaareynayaan inuu doortay inuu ku noolaado airportka bedelka qoyskiisa halka qaybta kalena ay la wadaageen dareen iyo naxariis gooniya ma cadda mustaqbalkiisu way ma wuxuu ku sii noolaan doonaa airportka mise wuxuu go'aansan doonaa inuu dib ugu laabto qoyskiisa iyo gurigiisa waqtiga ayaa sheegi doona